baro calaamadahan si aad u ogaato qofka ku jecel. badanaa waxay igu qaadataa inaan ogaado qofka uu jacaylku hayo muddo ka yar 30 daqiiqo kulankeenna ugu horreeya. adna sidoo kale waad ogaan kartaa haddii aad si fiican u fahanto calaamadaha ku xusan cilmu nafsiga jacaylka. si ka duwan sida dad badan ay aaminsan yihiin inaad ogaato inuu qofku jecel yahay in kale waa wax aad u fudud. waxaad u baahan tahay oo keliya inaad indhahaada u furto calaamadahan soo socda, maskaxdana ku hay in calaamadahan oo keliya aysan ku filnayn inaad ku ogaato inuu qofku ku jecel yahay in kale. calaamadahani waa calaamado qofku uu ku muujinayo isagoon iska warhayn ama moogan, taasina waxay kuu saamaxaysaa inaad ku ogaato qofka ku jecel. markaad qof aad u xiisaynayso ama aad jeceshahay, waxaad badanaa jeclaysataa inaad ku dhowaato qofka marka la barbar dhigo inta aad ku dhowaato ama u jirsato dadka kale. sidoo kale waxaad ogaan doontaa in uu qofka ku xiiseeyo isagu masaafo aad kuugu dhow oo fadhiisto marka dadka kale la barbar dhigo. qofka oo dhoola caddeeya marka uu kula hadlayo xitaa iyadoo aysan jirin sabab fiican oo lagu dhoola caddeeya waa calaamad kale oo weyn oo caddaynaysa qofka ku jecel. dhoola caddaynta qofka hore uma qarsoonto haddii qofka uu aad kuu xiisaynayo, balse dhoola caddaynta beenta ahi horay ayay u qarsoontaa, halka dhoola caddaynta dhabta ah ay waxoogaa sii muuqato inta aysan qarsoomin. qofka oo maalin aad kuugu fiican maalina ku inkira waa calaamad jacayl oo aad u weyn. sababta ka dambaysa arrintaasina waxay tahay marka hore qofku wuxuu kuula dhaqmaa si aad u fiican sababtoo ah wuu ku jecel yahay, laakiin marka uu xaqiiqsado inuu dadaal aad u badan sameeyey isaguna uusan kaa helin wax jawaaba, waxa uu bilaabaa inuu dib isku qabto. qofka oo bilaaba inuu aad u daneeyo saaxiibada aadna ugu fiicnaada una soo dhoweeya waa calaamad kale oo aad u xooggan, gaar ahaan haddii uusan qofku markiisii hore danayn jirin. marka uu qofku jecel yahay qof kale waxa uu badanaa jeclaadaa inuu ka sheekeeyo ama uu ka hadlo qofka uu jecel yahay. ugu dambayn, qofka oo mar kasta jeclaada inuu ku arko isla markaana aan ka maarmin aragtidaada waa calaamad kuu muujinaysa inuu qofku ku jecel yahay. haddaba haddii aad ka heshay qodobadan, fadlan sii sheer garay si asxaabtaada kale ay uga faa'iidaystaan, isla markaana like saar boggeenna Facebook ee Warqad Brace. mahadsanid.